in wasiirka gaashaandhigga ee hadda magacaaban la geeyo wasaaradda qoyska wasiirkan hadda loo magacaabo qoyska ee jananka oo ninka Soomaaliya ugu darajada sareeyana in la geeyo wasaaraddii uu mudnaa wasaaradda gaashaandhigga marka waxaan rabnaa inaan ka celino kuwa burkooda gadanaya iyo bariiskooda oo dhibaatada ku haya dhulboobka xilboobka darajo boobka iyo waxa dalkan ka socda waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegno midda kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada Soomaaliyeed nooc walba ay leeyihiin dagaalka kula jira qawaarijta waxay qabanayaan iyo dagaalada ay kula jiraan ma aha mid qarsoon maalmahan waxaan arkaynay xildhibaano dhahaya waxa laga hadlay ciidamada waxa hoos loo dhigay maqaamkoodii iyo wixii saxda ah ee mudnaayeen lagama sheegin annaga qirayna taas been waaye annaga ciidamadaas naqaana la soo shaqeynay la soo door jiifanay xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo dhibkay qabaanna og marka waxaan rabnaa inaan ka celino kuwa burkooda gadanaya iyo bariiskooda oo dhibaatada ku haya midda kale waxaan rabnaa in la ilaaliyo nidaamka dawliga oo dawladnimada ay shaqeyso waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha hadduu na maqlayo dhageysanayo in wasiirka gaashaandhigga ee hadda magacaaban la geeyo wasaaradda qoyska wasiirkan hadda loo magacaabo qoyska ee jananka oo ninka Soomaaliya ugu darajada sareeyana in la geeyo wasaaraddii uu mudnaa wasaaradda gaashaandhigga adduunka waana la yaabayaan markii nin oo generaala oo sareeyo gaasa oo magacaaban oo caafimaad qaba oo shaqayn kara la geeyo wasaaradda uusan mudnayn iyo wasaaraddii uu mudnaa uu joogo nin kale oo aan qualified u ahayn shaqadaas aad baan loola yaabayaa waxaa kaloo rabaa dhulboobka xilboobka darajo boobka iyo waxa dalkan ka socda waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegno maanta waxa la boobayo bari ma lagu munaafacadsan doono dhul dan guud in laga qaado dad shacaba oo habeen 9 saac ka tarbiila la geliyo oo guryahoodii la dudumiyo la baabiyo dad ganacsato la siiyana xaq ma waxaan rabnaa in dadka shacabka loo cadaalad falo dawladda dan guud waa yeelan kartaa dhul ay lahayd oo u baahnaydna waa u baahan kartaa laakiin in dadkii laga barakiciyo caruurtii oo jijiif qalabkoodii oo yaala habeen madow ka tarbiil la geliyo haddana ganacsato la siiyay aan maqalno ceeb waaye wax la qaadan karana ma dawladda ka waantoodo waxaan ka soo saari doonaa sharciyo dhulka waa la hadalnay mooshinna waa geena ninkii isku iibsada dhul dan guud ama si gooni u qaato ha ogaado xukuumadda waa bixaysaa tan dambe imaan doonto inay ka soo celin doonto baarlamaanka dambe waxaan rabnaa darajooyinka iyo xilalka oo la boobayo oo la iska magacaabayo oo xitaa wasiiradii la hoos dhigay wax la yiraahdo ergeygii iyo wasiirkii xitaa shaqadooda ma kala calaamadeysna waa la isku xallinayaa xalna dawladnimo kuma shaqeyso waxaan ognahay in markii 4 cutub laga shaqeynayay beela kamida beelaha Soomaaliyeed heshiis lagu la galay prime minister xigeen labaad la idinsiinaya oo hadda arintii ay taagan tahay oo baarlamaanka markii ay doonteen kursigooda haddana qolo kale ay soo istaagto tiri annagana ka saddexaad rabnaa waxa laga shaqeynayo dawladnimo maaha waxaan rabnaa madaxweynaha maalinkii hubka caabud waq lagu qabsadaa ugu dambeysay dhaqdhaqaaq iyo araggiisa la arko madaxweynaha waxaan rabnaa inuu godka uu galay ka soo baxo inuu banaanka yimaado in dawladnimadan qarka ka sii dhacayso uu badbaadiyo ka hadlo musuqa ka hadlo dhulboobka ka hadlo waxyaabaha xilkan iyo darajooyinkan beenta iyo ballanqaadyada beenta lagu galaayo dalkaanna waxaan rajaynaynaa in xasan sheekh maalinkii xilka loo dhiibay meeshii loogu dhiibay xitaa loogu yimaado waxaan noo muuqata inaan loogu imaan doonin wixii loo dhiibay oo wax ka hoose loogu imaan doono waxaan rabnaa in laga badbaadiyo dalkan sida ugu dhaqsaha badanna waxaan codsan lahaa madaxweynaha inuu miirka u soo noqdo banaanka yimaado shacabka Soomaaliyeed la hadlo konseenka ay qabaan canshuuraha la boobayo dhulalka boobkooda xilalka boobkooda darajooyinka la boobayo wax walba uu ka hadlo dadka uu u darees gareeyo waxa jira